haddaad ku cusub tahay Danjira channel fadlan subscribe saar videogana like saar bal isku day videogana aad gaarsiin kartaan 500 like aad baad mahadsantiin dhamaantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kanaalkan YouTube ka ee Danjira channel asxaabta ku xiran qiimaha badan isku soo noqdo wanaagsan. Muuqaalkan waxaan ku soo gudbinaynaa waxyaalaha sababa inay timuhu daataan iyo sida loo daaweeyo. Dhamayso muuqaalkan si aad uga hortagtid timuhu inay ka daataan. Timuhu waxay ka daadan karaan madaxa iyo qaybaha kale ee jirka, waxayna ka dhalataa waxyaabo badan sida dhaxal ama dhibaatooyin ku yimaada timaha ama hormoonada jirka iyo xaalado kale oo caafimaad darro ah ama sidoo kale dawooyinka qaarkood. Bidaartu waa nooc ka mid ah daadashada timaha, waxaana lagu qeexaa markay timahaagu si xad dhaaf ah u daataan, madaxa qaybta hore ama qaybta dhexe ay ka daataan. Timuhu markay daadanayaan waxay u soo muuqdaan qaybo kala duwan, waxayna ku xiran tahay waxa sababa. Daadashada timuhu waxay noqon karaan mid ku bilaabatay si aayar ama si tartiib ah ama hal mar inay bilaabato. Intaad isku dayin inaad la tacaasho daadashada timaha, waxaa wanaagsan inaad ogaato waxyaalaha sababay, sidaa darteed la tasho dhakhtarkaaga. Calaamadaha timo daadashada waxaa ka mid ah inay noqdaan timuhu qaar dhuuban, gaar ahaan qaybta sare ee timaha ee madaxa. Lambar 2, qayb wareegsan ama tinto lunta ama go'go'da. Lambar 3, cuncun maqaarka madaxa. Waxyaalaha sababo kale waxaa ka mid ah nafaqo darro oo qofka ku dhacda. Qofka ay ku dhacdo cunto xumo waxay keeni kartaa timo daadasho, waayo waxaa lumaya fiitamiino, hormoono ay timuhu ku shaqayn lahaayeen ama cunto xumo ku dhacdo. Marka ayay ku bilaamayaan inay timo daadasho ku dhacdo. Waxaa kaloo ka mid ah timo daadashada daryeel la'aanta timaha, qofku inuu daryeeli waayo timihiisa. wax kastoo aan la daryeelina way xumaadaan, sidaa darteed waa laga maarmaan inaad ilaalisid nadaafadda timahaaga, inaad u meedhid timahaaga si maalinle ah. waxaa kaloo ka mid ah inay timuhu daataan. waxa ugu badan ee keena timo daadashada waa hidada qofku ka hidaysanaya qoyskiisa, waxayna inta badan la socotaa da'da qofka, waxayna ku bilaabataa inay timuhu noqdaan qaar dhuuban. sidoo kale isbedel ku yimaada hormoonada iyo xaalado kala duwan oo ku dhici kara qofka oo la xiriira caafimaad darrada. xaaladaha kala duwan waxay sababi karaan inay timuhu daataan ama si ku meel gaar ah ama si joogto ah, waxaana u sababa isbedelka ku yimaada xilliyada uurka leedahay hooyadu ama ilmuhu dhalanayo. sidoo kale waxaa jira caabuqyo ku dhaca maqaarka timuhu inay go'aan ama lumaan. sidoo kale waxaa ka mid ah inay timuhu daataan dawooyinka waxaa ka mid ah kuwa lagu daweeyo kansarka, kuwa lagu yareeyo caabuqyada ku dhaca kala-goosyada, iyo dawooyinka lagu daweeyo xanuunada wadnaha. sidoo kale welwelka faraha badan wuxuu sababaa inay timuhu ka daataan. dawooyinka timo daadashada ku soo dhawaada. si wanaagsan ugu maydh madaxaaga shaambo oo aad tayadeeda hubtid, tiro ku habboonna ku maydho madaxa. kala isticmaal shaambooyinka daawada ah ee loogu talagalay inay ka hortagaan inay timuhu ka daataan. ogsoonow shaambada isticmaalaysi haddaad ka dareentid cuncun, jooji oo la tasho dhakhtarkaaga. iskuna day inaad la kulantid dhakhtar maqaar. daaweynta mushkiladda timo daadashada waxay u baahan tahay in la saxo waxyaabaha keenay timo daadashada, baaritaanna lagu sameeyo, kadibna lagu siiyo dawooyin kor u qaada inay ka hortagaan timo daadashada, laguna siiyo dawada korniinka timaha ee loo yaqaano monoxidone. timo daadasho dawooyinkana si fiican u qaadataa. sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaalaha lagu daweeyo timo daadashada sida saliid qumbaha waxaa ku jira maado u fiican timaha, waxayna maadadaas awood u leedahay inay si toos ah u dhex gasho halka tintu ka soo baxayso. iska ilaali timahaaga inaad midabaysi ama daawooyin marisid, maxaa yeelay timahaagu waa qayb ka mid ah jirkaaga sida lugahaaga iyo gacmahaaga oo kale. ugu dambeyn, waxaa laga maarmaana in la daaweeyo xaaladaha caafimaad darro ee keeni kara timuhu inay daataan.